السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل والبو جوجتانبا كسو دوادا برنامجك قرب جوجتا برنامجكن آلابا waxaan ugu talagalnay inaynu qurb joogta kaga faa'iideysano aqoontooda xirfadahooda iyo way aragnimadoodaba haddaba barnaamijkan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa hidaha iyo dhaqanka waxaynu ku soo marti qaadnay barnaamijka maanta waxa weeyaan مولد يوسف عمر أو nin dhalinyaro ah oo isku xil saaray in maaragtay dhaqanka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan dhaqanka hidiya dhaqanka Soomaalida maadaama ay dhaqano badan ee Djibouti ka jiraan saacan farta Carabta iyadoo aysan kuwaasna ka maqnayn isku xil saaray dhaqanka Soomaalida maaragtay jamhuuriyadda Djibouti in uu adduunka la wadaago uu adduunyada maaragtay meelaha mashraxyada adduunka uu ku soo bandhigo uu adduunka u macneeyo dhaqankaas inta inaan barnaamijka u guda galin waxaan maaragtay yar dhageysanaynaa hees yar oo ugu tala galnay oo nabadda ka hadlaysa فرحتي ونروراي معاني فرحتي ونروراي نمك ومرمو nabaday macaanay nabadu inay macaan tahay nin walba waa garanaya nabadna waxa saldhig u ah waa cadaalad marka la helo ayaa nabad la helaa nabad marka la helana horumar baa la gaadhaa مولد كسو دو برنامجك واندوهي ما سطع علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولد maxaa kugu dhaliya fikirka in maaragtay dhaqanka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan maaragtay maadaama dhaqano badan jiraan ka Soomaalida aad maaragtay aad rabtid in adduunka aad bartid بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة الله سلام الله عليه وعليه waxaan doonayay cali warta waa maadsan tahay waxaanad kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo fursaddan aad siisay haddii aan u soo noqdo su'aashaada horta dhaqanku waa lagama maarmaan sida aad iminkaba hadalka ku bilowday dhaqankuna wuxuu la socdaa horumarka qof aan dal ama dad bilaa dhaqana oo bilaa maaragtay aanan haysan hidahoogii iyo dhaqankoogii hadba intay ka dheeraadaan bay ka sii dheeraanayaan maxay hayday horumarka dadku waxay horumarka u haystaan in horumar la gaadho oo maxay la gaadho laakiin haddii dhaqan laga maqan yahay iyo soo jireenkeenii iyo hidaheennii haddii laga maqan yahay horumarku kulley waa kala dhantaalan yahay dhaqankuna sidiisaba waxa weeye waa barbaarta fiican waa barbaar hadba dadku intay dhaqankooga haystaan ayay ku faani karaan horumar iyo maaragtay iyo dhiirigelinba marka aniga waxa igu horta kulley igu dhiirigeliyey ama igu maaragtay igu tirtirsiiyey inkastoo aan fikradan le igu horreeyey oo nin walaalka yaa Cumar Yuusuf Cumar halkan hadduu kulley dhegeysanayo ama dhegeysan doono waan ka salaamayo iyo ninka iminka ah superfega maxay ahayd degmada labaad waxay ahayd Kaartiseed haybe xareed jadiid labadaas nin ayaa hortaas bilaabay waxay sameeyeen urur la oran jiray Association pour la promotion des artistes djiboutiens abad oo la nation maray maxay ahayd article badan oo kula lahaa oo waraysi badan laga sameeyay xitaa ilaa inuu isku gaaray يا رمضان بالها 2011
2012 marka xataa RCBC loo samaysteen wayna waxay sameeyeen inay gaarsiiyaan markii ahaan waxay gaarsiiyeen ilaa iyo Dubai bay geeyeen waxay iyagu ka bilaabeen horta waxa la yiraahdo fanka iyo dhaqanku way isla socdaan waa meelna way iska soo galaan kulli dhaqanku wuxuu ka bilaabmay fanku wuxuu ka bilaabmay muddo dhaqan iyo dhaqankeena waxa ku jiray waa farshaxan fanka lagu sheegay horta waa farshaxan wax la qurxiyay wax qurux badan dhaqankeena sideedaba uu qurux badan yahay marka waxay sameeyeen farshaxankii gacanta ayay qaadeen waxay geeyeen dibadda waxay doonayeen carabta waxa ka dhacay marka maharajaan ama maxay exposition Dubai marka 2012 bishii koowaad waxaan ma 2012 bay tageen waxay u bixin Dubai farshaxankii iyo kaabaladii la sameeyay sida boorskadadan oo ay ku xadran yihiin dhaqankeenii iyo caws baldo geedu koraysa akaasiyaaska awrtii oo daba socota sida laga casaro wixii qolxadkii waxyaabo ay kaasi qaadeen waxay qaadeen qolxadkii waxay qaadeen kabihii baadiyaha waxay qaadeen firinkii waxay qaadeen sufraadkii wixii oo dhan dhaqanka oo dhan marka markii geeyeen aad baa loo soo dhaweeyay safiirkii markaasi ma aqaanin inuu joogo Maxamed Muuse ayaa soo dhaweeyay halkaasay maaragtay ku bandhigeen muddo adu way wadeen waxay isku dayeen xitaa inay tagaan dibadda adu farsamo xajada dhibaatooyin soo de soo food saaray awgeed ayay uga hareen labadii nin iyo de danahoogii kale oo iyagu si balaadhay oo ay shaqooyinkoodii kale ka arkay marka mar dhexdeeya waxa aan aadaba gaar ahaan iyo waxa ka soo galay inkastoo la shaqeeyay aan ka maqayn markaas ilaa xalxadka ilaa xilligaas ayaa waxa aniga halka inkay mar dhexdeeya waxaan tagay Yurubta sida Belgium oo kale iyo Faransiiska aan soo maray Belgium in badan baan joogay meelaha muddo 20 cisha waxaan wada kulanay nin yiraahdo Maxamed Shanle Allah hagajaysiyo waa nin badan wax badan igala qabtay wax badan la qabtay wax badan fikradeeda ka maartay fikrada badan iga dhiibtay markaan u sheegay in aan sameeyno horta waxa weeyaan wax meesha ka baxay wixii la oran jiray hidiya dhaqankeenii diasporaga dibaddu waxba kama garanayaan dhaqanka Soomaalida haddaan nahno Soomaalida way naga fiican yihiin reer Soomaaliya waxay sameeyaan Minnesota waxaan xasuustaa mar lagu qabtay exposition weyn oo xataa boolkii iyo dhaqankii iyo wix soo jireenkii in dib loo soo nooleeyo way fiican tahay dhowrkii sano marka xataa waxa jira 3 generation oo maartay isku soo daba maray in ay dibadda ku dhasheen ama ay dibadda tageen generation saddexaad uu ka maran yahay dhaqankii iyo hidihiisii marka dadkii dib loo soo xasuusiyo oo dib loo celiyo oo dib loo maartay dadkii dib u arkaan waxay la noqotay aniga ahaan arin fiican marka ninkaas aan u bandhigay waxaan keenay maxay u sameeyay weedeen exposition oo dadkii maaragtay diaspora kan Djibouti iyo dukan jooga aan loo kulmi waayay hoolinta loo kireeyo waxa iyo wixii qalab agab aan lahayn ee dhaqankeennii lagu sameeyay waayay kulli dadkaasi qurbaha jooga kama maqana oo de marka xaflada ay sameeyaan way sameeyaan wixii dhaqanka way qaataan oo calanka markaas u khidna waqtiyada calanka oo kale waa la sameeyaa laakiin waxay noqotay wax la xisku focaliseeyo waqtiga calanka oo de waa calankii maanta laakiin waqti ka duwan in la sameeyo oo wixii oo dhan la soo bandhigo waxataa dadku iibsadaan ay arkaan xaafadahooda geystaan sidee dadkii imika qoomiyadaha kale marka aan ka hadlo caliyo qoomiyadaha kale Ethioopiaanka oo kale Eritreaanka oo kale Kongoleega Senegaaleega markay dhuga ku dhaqan yihiin على الأقل واحد يربي كهيا نقل كوجي يهتوجي أو أي قريها دكتور حافظه إنه واحد مدين لقى فانية وأنا ديك شيء من آسر يعني هو على جح الشغل أنا كاسبه كوكو لبا نقل كيني يهدوه وقت محوين السينية وحوين السينية بتكينو سلام كهيس تدخل بالوضي نبض وكوكو ويدا نقل لون نقضه وحلا جارية حسيلوني يوناج يتكل جعيل وحنا كبح حيث ماشي بتكينا يتسين نعان ويتسين بطان وحل مرجع ملكي هو وين أبالك مسمي وين كانوا مرجع يشان سيرتو دياسبورا قد بدأ كل رقم مرجع لون نقضه ما هيسمو ويدك كانوا بقى كانوا نفر يا سلام ماذا ولا لك مقتل بحي مخاطيق ما كفر يعني واحد كاش شيء سايكوت هاي وحي أهيد بقى في عمال هاي ما هو ها ما هينون لقاطو ما رأيته هو قرح بدني هو بقى كيم ما كلا سعودية ما بقى كيم لو بدك من محوها محلون نقنجر وحوي إمي كمان بركة سادات أو إسكو ما رأيته واحد كهوري مناجا واحد طمع نقطة سياسة هالنقطة ما يوحك لها النقطة واحد طمع هالنقطة تطبع واحد كهوري مناجا تذكاسي وحلو كلا ما لكن وكلا راعيان ويوكلا ما رأيته نقونيان
inaan meel xun la marto laakiin dhaqan baynu lahayn mahmaadaas aynu kusoo koobmaysaa walaalkaa magta la bixi markhaatigana ku yani waxay ahayd waxaanu lahayn dhaqan iyo wax soo jireena oo aanu ku dhaqmi jirnay oo inoo ahaa nacam yani marjac taasi waxay ku tusaysaa iminka yani waqtigan aynu ku jirnay xaadirka inaanu ka baxnay oo aanu ka tegnay dhaqankeennii waxayna sababtay in ay maaragtay waxyaabo badan la iloobo waxyaabo badan la hilmaamo maxaa yeelay waxyaabo badan marka laga tegana waxaa imanaysa dhibteeda leedahay horta kolley halkaasaan kusoo koobi lahaa su-aashii inaan waxaan madayaa ku bartaan marinaya markaad eegtid moolid dabcan jabuuti marka la yidhahdo dhaqanka jabuuti dabcan qoomiyado kala jira sida canfarta oo kale canfarta markaad eegtid xaqiiqdii qurbaha diasporaga marka eegtid canfartu aad ayay ugu dhajisan yihiin dhaqankooga oo meelaha maaragtay lagu soo bandhigo dhaqamada sida belgiga faransiiska gebi way ka qayb galaan way soo bandhigaan kolka maxaa is leedahay soomaalida maxaa dib u reebay soomaalida maxaa u sababa is leedahay كل سؤال في عن عليو أرتا برنامج كي كمان مقنع إن عفر وشقينه من أو يسوي عفر يعرب لبض النعمة كسوق جدا يقول جري إن كهام ويغير مشغولي رجارة قبصدي وانجع على مانتي إنه مرة تاي أو يلا قايب قاطو لكن مرة بكلي صون قندونا سواء في تين دون أصلا عيان سو مرة تاي عم دبوا جيار دونا إن شاء الله تعالى waxa hore kulli warta waan way cafartu waa qoomiyad walaalheena waa qoomiyad inala dhaqan waa qoomiyad dad oo reer Djibouti waa dad oo aad warta kulli dhaqankooga oo adag intus lagu daydana ay tahay waad aragtaa dacaliyo kulli waxa tihiin qurba joog cafartu waxay dadka kaga horeeyaan ayaa la oran karaa ama dadka kaga yar kaga dhajisan yihiin dhaqankii ay uga dhajisan yihiin oo uga jecel yihiin waxa weeyaan way haystaan وحول بمرك اللي قلنا جادنا وحولي هي ما عرفتاي قرعديسي iyo maaragtay wanaagiisi hadba hadaad ka dheeraatid sayniga sheegay waxa ku imanaya kala jajab iyo in aad ka faantid dhaqankaaga inkastoo ay tahay in lagu faano inay ahayd in laga faanana ay ceeb ahaan lahayd laakiin waxaan moodaa qowmiyadan Soomaalida Djibouti ku dhaqan waxay uga maqan tahay kaliya waxaynu gaarnay heerkii aanu ka faanaynay taasina waa ceeb caliyo waxa sababay oo kaliya oo sababta ugu weyn ay tahay sidaan anu isleeyahay waanu ka faanaynaa waana ceeb calayna shame on us inaynu ka faanno waxayna gaarsiinaysaa wadiga arkeed meel laga hadal hayo ama meel exposition laga samaynayo ama meel lagu soo bandhigayo ma jirto xataa iminka generation way socon doonaan dadka way sii soconayaan dadka hadii wax laga reebi waayo si maxaa gabadh maalin dhow waxaan dhageysanayay VOA-da saddex generation ma jira bay tiri waxa saddex generation kuwii ugu horeeyay way haysteen waxoogii baa u dhanaa oo dadku way isku xidhnaayeen waxaan dhaqanku waa silsilad in horta in la fahmo ayaa taas silsiladii generationkii labaad baa ay soo gaadhay generationkii labaad ayaa meesha ka baxay oo hawshiisii gabay waana xaqiiq waayo markay kuwaas meesha ka baxeen kuwii la sii gaarsiin lahaa waxba aan ogeyn xataa ay gaaraan in maxay hayday ay xataa ay gaaraan waqti ay gaaraan in ay ka faanaan oo ayna u haystaanba waxaan wax baadiyay maxaa naga celinaya xataa example hadaad eegtid muxuu oran waayay wiilka reer Djibouti ee cafariyay waxaan waa wax baadiya muxuu oran waayay wuxuu garanayaa inay tahay horumarkiisa iyo ku jirto maxay hayday wanaag iyo marjac loo noqdo wax walba ha noqotee laakiin inagu waxay noqotay in aan idhaahno war wax baadiye gadaa oo ay noqoto ninka ka sheekeynaya aniga way soo marto qaar badan baa iga yidhi ruuxna ka sheekeynaysa niga waa dambaysaa iska daysida wax kale ku bedishida laakiin waxaan u arkay in ay tahay inay garaad gaaban yihiin cayiga ma aha laakiin waxaan u malaynayaa inay garaad gaaban yihiin iminka marka aan ka hadlayno qowmiyadda cafarta sida diasporaga ku nool Scandinaafka sida diasporaga ku nool Belgiga iyo nawaaxigiisa sida iyo Jarmalka iyo Dutchka iyo Faransiiska badhay sida ku cafarta ku nool North America waa isku xidhan yihiin waxna waa ka dhaxeeya waa maxay waa dhaqankii inagu waxaan moodaa in waxbay naga dhig marka meesha ka baxdo wixii naga dhaxeynay isku xidhayay waxa meesha ka baxayna fafrano
تاسعنا صوبت عليو تاسعنا مالي لكن marka aad eegtid diaspora-ga reer Djibouti ee qurbaha ku nool intooda badan waa hal generation waxa ku dhashay waayo dhawaan u baan qurbaha soo wada galnay Soomaalida kala nooga horay so hal generation say durba maartay dhaqankooga u iloobeen maxaa sababa mana dalkii badan ku haysan baad isleedahay markay dalkii ka yimaadeen ba way ka marnaayeen dhaqankooga وسؤال يتيم الدراسة عطاء وأنا آذف في عن جعلها هنا أنا كل هرتك الله عن قو إفتيمنه واحد صوابي وحبيجي هذا سيدي دبا أما دلك هالجوجان أما دي بدها وقام غناداني بقى كيني صوماليات القومية اللي هذه واحد مدينة كفانيس مركي دي بتجانا واحد مدة إن يبقى كي هذا كدي أيدي جارن لسيتي أما شمس لسيتو ولا إسكتجي أي نقطة in laga sii faaruqayaba oo laga sii baxayo taasi dibteeduna waynu aragno caliyow de kulli waxa keenay waxayna dhaxalsiisay inaan hadda kadib noqono dad oo bila marjac meel ay ku noqdaan haysan waayo mid haddii aan dhaqanka haysano waxay noqon lahayn meel wax ka soo qaadano oo aan boogta timiday yani baalka gaar ka yimiday aan ku daweyn lahayn laakiin haddaynu haysan oo garanayninba marjiceen waxay noqonaysaa waxay nagu sii yani sii socoto hadda hadhowna hadda aan ilowna aan garan weyn sababtuna waa taas kolka adiga mustaqbalka maxaa ku qorshaysan in aad halkee ilaa halkee inaad gaarsiisid ayaa ku qorshaysan mustaqbalka maxaa ku qorshaysan horta waxaan doonayaa inaan kaga sheeko oo mar dhexdiya aan isku dayay waxay ahayd waxaan rabay inaan qoro buug aan u bixiyey taariikhda fanka Soomaaliyeed waxaan bilaabay 2008 waxa aan ula tagay nin loo oran jiray Maxamed Daahir Afrax ma ogi inuu nool yahay hadduu nool yahayna waa salaamayaa hadduu dhintana Allah u naxariisto oo ahaan jiray Somali Band madaxa Somali Band 2008 baan isku dayay isagaan horta booqday oo markaa ahaan jiray madaxa Somali Band markaan u tagay uu tijaabiyey oo tijaabadii aduu waan dhaafay wixii weydiiyay su'aalo badan su'aalihii badan waan uga jawaabay markaa wuxuu iga yidhi dhegeyso horta waxa tahay nin oo aad u yar anigu waxaan sameeyey buug loo odhan jiray masraxa Soomaaliyeed oo marka loo eego buuggan aad wadid marka 3 loo qaybiyo ama 4 loo qaybiyo qaybtii ahaa waayo masraxu waa qayb ka mid ah fankii oo dhan maaha waxaan kula talin lahaa in aad qayb ka qortid oo ka dooratid qayb haddii aad laakiin ku tala gashid ugu yaraan 10 sano ka qaadan runtii waxay noqotay waxay leeyajabiyey baalkii oo wado 10 meelaha 10 20 15 baash ayaan joojiyey dibna uguma noqon marka waxaan rabay kulli waxaana igu dhaliyay aadan faarax allaha caafiyo allaha waxa jira jamciiriisa dheereeyo ayaa maalin hadal ka yiri radio television-kan daawanayay odayaashiideedii soo halgamay fanka ku soo jiray Djibouti wax naga qoraya oo naga reebaya dhaxal ma jirto yani waxay noqotay hadal aan aad i taabsaday markaasaan isku dayay inaan buugaas oo buuga weyneeyo laakiin isku soo koobo xaqiiqda dambe in la xarago qoro markii dambe waxaan isku fokarisay doonay fanaaniintii qaranka ay waaweyneed sida Aadan Faarax sida محمد إبراهيم قرلة سيدا حسن علمي سيدا عبدو حمرقود سيدا إسماعيل عبدو إسماعيل بمجرد سيدا سعيد رجع عن كاسها يضمر كي بينهم يجوا حلقة على الأقل وحي قبتين وحي سنين هي صاحي لهاي يمسيه الصوت بيلهاي وحي كاس عندنا محمد بوغدي عبد الله حاجي حسيي شنن إنك شنتين الوحى كنول وكليا وضيع إسماعيل دوكسي شنتين الوحى هايين حسن علمي إبراهيم قرلة عمر معلم يو إبراهيم أضيق كلا اسمه إبراهيم قرب يرى يو إسماعيل دوكسي وفنكي أن ربي أن دوني إن أنك بلو جفن كانوا حولي وحين كرا وقاموسا ما ديكشنريا أضيق إبراهيم قرب يرى رهلو ومركا سيسي تعبانها يو أفر تاني نكال إسماعيل دوكسي نحكسين بيوري يعني فنكم مركا اللي إيغو وصوما يدور بلا جرجرو ما فنك الميزيك يحنون معها فنك وصوما يدور جرجرو قبي بوح محي برامبور
waxyaabaha uu soo maray waana kulley waxaa ka dhexeeya cilaaqaad hiddaheenan iyo dhaqankan iyo fanka oo fanku wuxuu soo jaranjarooyinka uu soo maray bay ka mid ahayd hidiya dhaqanka dadka waxay qof markuu ninku guur u diyaar yahay yani nolosha waxay u ahayd astaan ama lafdhabar dhaqan fankuna wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha lagu qurxiyo ee dadku ku faanaan marka sheekadaas aan ku noqday awgeed ayaa tanna igu qasabtay anoo iskaga sii dhex jiray in aan arrinkan laftiisa sameeyo marka anigu imika waxa ii diyaara oo aan mustaqbalka rabaa in aan qaadno fankii oo auna ka maqanayn fankii caadigii iyo hiddiheenii dhaqankii oo isla socda inaan qaadno oon dibad geynin waayo wadankii wada arkaysaa kulley wadankii dadka ku dhaqnaa iyagu haba ka maqnaadaan laakiin way maqlayaan way arkayaan maalin walba iyagu waxay dhegeysanayaan heeso maalin walba waxay dhegeysanayaan hidiya dhaqankii dadka ka maqan iyagu u baahan dadka yurubta dadka qarbaha jooga in calal aqal bal 3 sano 4 sano loo geeyo mar exposition loo waxeeyo marka dad waxay dareemi doonaan waxaan xasuustaa qolada Soomaaliya ee Soomaaliya ee Minnesota ku waxaysay gabadh baa ooyeysay waxaan daawanayay meemiyada yani bahalka inta laga soo qabtay gabadh baa ooyday waxay tiri anigu waxaan ku dhashay Mareykan laakiin dhaqan qurux badan ayaan arkay bay tiri dhaqankaygu qurux badan markuu ilmuhu ku dhasho wadan qurba ah music duf iyo dac iyo dhaqan qaaqaaw markay arkaan iyo dhaqankooda iyo xushmad iyo maxay hayday iyo karaamad leh markay arkaan way khushuuceen mugti marka in dadkeeni waa generation keliya laakiin sidan qurato fakad uga baxay mar quraata waxa soobay dib bay uma arki aabahood baa ka yimid ugama u sheekeyn xataa ugama warramo laga yaabaa inay sarkiin baa dhici kartaa inay kala mashquulsan yihiin meel kale oo ugu haagaan oo ka arkaan ma jirto marka calal aqal bal mar in loo geeyo oo loo bandhigo waxa aan kaloon ku dari markii aan joognay Belgium ka soo soconaynay waxaan tagnay bishii 6aad aakhirkeygii bishii 7aad bilowgeygii Djibouti bana ka baxayno waxaan sii qaaday 2 calan oo anagu aan iska sidanay mid waxaan doonay Maxamed Sulaymaan siino ka soo niloonay midna waan markaan soo baxay maalinta baxaynay gabadh aqalkaan la geeynay oo iyadu 9 sano wadan ka maqnayd ayaa siinay kaadoo siinay gabadhii farxad wallahi way qayliday markii calankii aragtay waa calankii waqti marka ka waran marka dhaqankeeni iyo diheeni farshaxan la sameeyo boort laga soo sameeyo xitaa boort clean baawrka la sameeyo la sodhe kala quruxda badan leh oo calankii iyo farshaxankii dad badan oo reer Djibouti oo farshaxna ah shaqo waxay noqonaysaa amal iyo waxay sameeyaan dad oo dibad ku dhaqana maskaxdoodii iyo aqligoodii ay u soo celinaysaa kalgacayl iyo maaragtay maxabana way gelinaysaa marxaba hiddi iyo dhaqanka waxa ku shaqo leh wasaaradda maaragtay waxa ku shaqo leh wasaaradda awqaafta iyo diinta ayaa hiddi iyo dhaqanka ku shaqo leh uu madaxa ka yahay wasiirka maaragtay Muumin Bare kolka ayaga wasaaraddaasi wax xiriir ma idinka dhaxeeya maadaama oo waxa aad wadid ay dhaqan tahay dabcan way naga dhaxeeyaa waxa aan la sheekaystay directorka Ducaali si fiican uu soo dhaweeyay wuuna ila qaatay waanan kulley wuuna ila wadaa waana ila jiraa insha Allah ta'ala وانا كلي وارن او وايغ وماشي ku shaqo lahayd wasaaraddaasi dabcan waan wada shaqeyn naga dhaxaysa marxaba Mawlid gabagabadii maxaa talo u soo jeedin lahayd maaragtay dadweynaha reer Djibouti ee ku daawanaya horta kulley waxaan u soo jeedin lahaa in ay lagama maarmaan tahay in dhaqankii iyo hiddaheenii la xasuusto oo la maaragtay la tixgeliyo oo dadku ay ka muuqato oo ay jeclaadaan oo ay bartaan dadka reer Djibouti ee iyagu meel kasta horta joogaan gaar ahaan kuwa jooga dibadda waxa aan kula talin lahayn in ay documentary jira waxa jira qoraalaad jira waxa jira iminka dhulku waa horumaray yani waxaan ku jirnaa qarnigii 12aad si kasta waa loo heli karaa yani inayna suginuun in waqti loo yimaado oo la tuso anagu de way tahay way dhici kartaa wayna dhici mana dhici karto oo deena halka gaarno ma dhici karto laakiin waxaan kula talin lahaa inay bartaan inay isku tixgeliyaan inay yani isku taxallujiyaan inay dariiqi kasta ay ku baran karaan ba ay sameeyaan kuwan reer Djibouti iyagu Djibouti jooga iyagu nasiib ay leeyihiin oo
iyagu si kastaba way ku maqli karaan si kastana way ku baran karaan waxa aan dardaarankaygu tahay inaan dhaqankeena ka faarin inaan ku faanno mooyaane saasay aniga dardaaran marxaba mawlid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa mawlid yuusuf cumar oonu ka waraysanayna hiddi iyo dhaqanka intaynu dib u kulmi doonno waa anigoo cali casoowa waxaan idin leeyahay saas iyo nabadgelyo